kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta xog waran waa maalin Sabtiya 15 bisha 8 ee Agoosto sanada 2020 qodobada warkeena labaad aan kugu hayno waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo khudbad xasaasi ah maanta ka jeediyay kulanka xildhibaanada golaha shacabka haddaba muxuu kaga hadlay wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu carqaladeynayo shirkad Dhuusamareeb madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo ka qayb galaya shirkad Dhuusamareeb 3 wasiirka amniga maamulka Galmudug mid ka mid ah golaha wasiirada Puntland oo geeriyooday iyo Turkiga oo xiriirka u jaray dhigiisa Imaaraadka Carabta qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqal doontaan warkeena labaad daawadayaal haddii aad ku cusubtahay channelka xog waran fadlan subscribe saar gambalelkana riix si ay ku soo gaaraan wararkeena maalinlaha ah aynu ku horeynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad maanta ka jeedinayay kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladaha dalka iyo sidoo kale shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo shirka lagu wado in dhawaan ka furma magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug madaxweynaha ayaa sheegay in go'aan kasta oo laga soo saaro shirka magaalada Dhuusamareeb in dib uu ugu soo celin doono golaha shacabka waxa uu sheegay inuu ilaalin doono sharciga doorashooyinka oo ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay baarlamaanka in shirkii Dhuusamareeb uu la tagay ay ahayd sharcigii doorashooyinka ee qof iyo cod isla markaana heshiis siyaasadeed la soo gaaray midkanna uu yahay heshiis labaad oo midkii hore laga dhigayo wax aan jirin waxa uu sheegay in markii uu tagay Dhuusamareeb ay dowlad goboleedyada ay ku dhageen doorasho dadban 2016 isaguna uu ku adkeysay in doorasho loo baahan yahay inay ahaato tii sharciga laga sameeyay horena looga heshiiyay in la meel mariyo heshiiskii shalay galeenna aan la fulin madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay talo wadaag iyo is-ogol isla markaana laga maarmaan ay tahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay mar walba wada hadlaan sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in maanta ay tahay 15 bisha Agoosto loo balansan yahay in la isugu tago Dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka ka dhacayso sanada 2021 dhinaca kale wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu carqaladeeyo shirka Dhuusamareeb ugu furmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee looga arrinsanayo doorashooyinka waxa uu sheegay in heshiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb aan dib loogu celin karin golaha shacabka oo uu sheegay in waqtigoodii uu dhamaaday waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo wuxuu golaha shacabka ka horjeeday inuu wixii Dhuusamareeb lagu gaaro uu iyagu u soo celin doono oo ay ereyga ugu dambeeya ee doorashada iyagu leeyihiin tani marna ma aha inay suurto gasho wixii Dhuusamareeb lagu gaaro waa inay ku ekaadaan Dhuusamareeb heshiis siyaasadeed boos ugama banaana golaha shacab oo waqtigoodu dhacay ayuu yiri wasiirka hore arrimaha gudaha Juxa wuxuu intaas ku daray doorasho dadban oo heshiis lagu yahay kaliya ayaa maanta suurtagal ah golaha shacabka dib ugu soo noqdaan goboladooda oo kalsoonida cusub ha weydiistaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ka qayb galaya shirka Dhuusamareeb 3 ilaa xogayaal oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya inay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland shirka Dhuusamareeb ka dhici doona Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa waxay Dhuusamareeb tagi doonaan maalinta Berita waxaana maanta gelinka dambe ka sii hormari doona wafuud ka kala tirsan labada madaxtooyo iyo ilaalada mas'uuliyiinta madaxtooyada Puntland waxay xaqiijisay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay Djibouti waxaana qorshaha uu yahay in biri uu tago magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale Axmed Madoobe ayaa tagaya Dhuusamareeb biri waqtiga uu taga Saciid Deni waxaana arintaas lagu macneeyay in siyaasad iyo qorshe ahaan ay isku dhow yihiin labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la hadlay mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed si ay uga qayb galaan shirka muhiimka u ah xaaladaha dalka doorashada geedi socodka iyo isla jaanqaadka habka loogu wajahayo doorashada qof iyo cod beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraysa madaxda dowlad goboleedyada inay ka qayb galaan shirka Dhuusamareeb 3 haddii lagu guuleysto kulankaas waxa ay tilmaamtay in rajada doorashada iyo hanaanka lagu wajahayo mugdi uu hareeyo wasiirka amniga maamulka Galmudug oo dhagax dhigay xabsi cusub wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidanka booliska Galmudug ayaa booqasho ku tagay saldhigga caasimadda Dhuusamareeb iyaga oo u kuur galay habsami u socodka howlaha ciidamada booliska wasiirka iyo taliyaha ayaa dhagax dhigay xabsi qaab isku tashi ah looga hirgelinayo saldhigga caasimadda dhexdiisa ah kaasoo ay dhismihiisa gacan ka geysan doonaan bulshada caasimadda ciidamada booliska wasaaradda amniga iyo qurbo joogta reer Galmudug
galmudug ayaa siyaasad ahaan u qaadatay in saldhig walba laga hirgeliyo xabsi lagu xiro kuwa dambiyada geysto iyo kuwa dambiyada kala duwan loo xukumo. wasiirka ayaa jaaliyadda reer galmudug iyo dadka caasimadda ugu baaqay inay gacan ay ka geystaan dhismaha xabsigaasi muhiimka u ah amniga iyo kala dambeynta galmudug. mid ka mid ah golaha wasiirada Puntland ayaa geeriyooday. wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in wasiiru dawlihii madaxtooyada Puntland Maxamed Xasan Ciise ee xukuumadda hadda jirta uu goordhow ku geeriyooday isbitaalka Garowe. xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay geerida wasiir Maxamed Xasan Ciise. waxa uu geeriyooday neef qabatin ama naqaska oo ku xirmay 3 maalmood ayuu xanuunsanaa oo qandho, madax xanuun iyo naqasku uu ku dhagayay. wararka qaar ayaa sheegay inuu u geeriyooday cudurka safmarka ee coronavirus, inkastoo weli aysan xaqiijin arrintaasi laamaha caafimaadka maamulka Puntland. halkaan naga daawanaysaana daawadayaal waa janalka xog waran. markana Turkiga oo xiriirka u jaray dhigiisa Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay joojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay dalka isu tagga Imaaraadka Carabta oo xiriir saaxiibtinimo la sameeyay maamulka Yuhuudda ee Israa'iil. war laga soo saaray xafiiska madaxweyne Erdogan ayaa lagu sheegay in Turkiga ay la baxayaan diblomaasiyiinta iyo danjirayaasha ka jooga magaalada Abu Dhabi, taas oo ay kaga jawaabayaan xiriirka cusub ee dhex maray Imaaraadka iyo Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa ku tilmaamay heshiiskii dhex maray Imaaraadka iyo Yuhuudda mid munaafaqnimo ah oo ay cafin doonin bulshada Carabta. afayeen u hadlay dawladda Imaaraadka ayaa si kulul uga hadlay hadalka Turkiga. waxa uu sheegay inay yihiin dal madax bannaan oo cidda ay doonaan xiriir la samayn karaan. heshiiskan cusub waxaa ka mid ah in Yuhuudda dhulboobka ay ka dayso Falastiin, gaar ahaan daanta galbeed. Imaaraadku waa dalkii saddexaad ee Carbeed oo xiriir la samaysta tan iyo sanadkii 1979 waxaana ka horreeyay Masar iyo Jordan. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen janalka xog waran. fadlan haddaa ku cusubtahay subscribe saar oo nagu soo biir si aad u heshid warar lagu kalsoon yahay. mahadsanidin.